Waa salaam saaxiibayaal waxaa ku soo dhawaataan xogta iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe. Shabeellaha Dhexe maanta waxaa ka baxay wafdi ka wakiil ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ku sugan degmada Cadanle. Wafdigan ayaa u jihaystay inay gaaraan degmada Said Cali Guduud iyo deegaanka Xaaji Cali. Wafdigan oo saacado ka hor gaaray deegaanka Xaaji Cali iyo degmada Said Cali Guduud ayaa waxay kula kulmeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halkaas ku sugan ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dadka deegaanka. wafdigan uu horkacayay taliyaha ilaalada gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya taliye Maslax ayaa waxa ay gaareen deegaanka Xaaji Cali halkaas oo ay kula kulmeen afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dadka deegaanka ee halkaas fariismaha ku leh. Taliyaha iyo wafdiga hogaaminayay ayaa gaaray degmada Said Cali Guduud halkaas oo ay kula kulmeen gudoomiyihii degmada saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dadka deegaanka ee halkaas ku leh fariismaha kooxda Al-Shabaab ee kula dagaalamayaan. wafdigan uu hogaaminayo taliyaha ilaalada gaarka ee madaxweynaha taliye Maslax ayaa daaran u kurgalida iyo ka warqabka xaaladda ciidanka ee ku sugan fariimaha hore ee dagaalka gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Wafdigan ayaa hordhac u ah wafdi madaxweynaha uu hogaaminayo oo maalmaha soo socdo ama saacadaha socdo la rajeynayo inay gaaraan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Said Cali Guduud iyo deegaanka Xaaji Cali. Madaxweynaha ayaa maalmo ka hor booqday degmada Aadan Yabaal iyo Moqori halkaas oo kula soo kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida General Shote oo halkaas iyagu u jooga dardargelinta iyo dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee halkaas difaaca kaga jira. Madaxweynaha ayaa halkaas bogaadin iyo dhiirigelin ugu tagay ciidamada si uu u dhiirigeliyo dagaalka nafurnimada ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha oo haatan ku sugan degmada Cadanle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la rajeynayaa in maalmaha soo socdo ama saacadaha soo aadan uu u ruqaansado gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmooyinka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. In madaxweynaha furimaha hore dagaalka uu dib ugu laabto waxay dhiirigelin iyo bogaadin u tahay ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee iyaga difaaca maalin iyo habeen ugu jiro si ay dalka ugu difaaci lahaayeen kooxda Al-Shabaab. In madaxweynihii qaranka uu kugu soo booqdo waliba asagoo xiran tuutihii ciidamada qalabka sida oo aan waxba ka duwaneyn waxay u tahay dhiirigelin iyo bogaadin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ah ee dagaalka nafurnimada ah kula jira kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa dhiirigelin u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka in madaxweynihii uu kula hooyinayo furiimihii hore dagaalka iyaga ee habeen iyo maalin kaga jireen difaaca. Taasi ayaa ah bogaadin iyo dhiirigelin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed loo sameynayo si ay u dardargeliyaan dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Guud ahaan Soomaaliya waxaa ka socda dagaal lagula soo horjeedo ama dalka looga saarayo kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe xoojisay weerarada ay ku soo qaadaan xerooyinka ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay weerar isdaba joog ah ku soo qaadaysay xerooyinka ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Sabiib Caanoole iyo Awdhiigle. Balse nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo foojigan ayaa weerarkaasi ka hortagay dagaal toos oo dhex maray ciidanka dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaana waxaa kooxda Al-Shabaab lagu gaarsiiyay jab xooggan sida ay noo xaqiijiyeen ee ka tirsan ciidanka ammaanka ee ku sugan Awdhiigle iyo Sabiib Caanoole. Sidoo kale dagaalka kuma ekeen in lagala hortago kooxda Al-Shabaab xabad maadaama iyaga kooxda Al-Shabaab qaraxyo ay ku bilaabeen weeraradooda taas beddelkeeda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna u adeegsaday kooxda Al-Shabaab diyaaradaha duqeynta taas oo qaybtii ugu weynay duqeynta ay ka qayb qaaday diyaaradda maalmo kooban Soomaaliya ku sugan kana howlgalaysa ee lagu magacaabo diyaaradda Akanji ayaa waxay noqotay diyaarad halis ah iyadoo maalinkii ugu horeysay ee Soomaaliya la keenay isla habeenkiiba u qaraab tagtay duqeymo ay ka geysanayso gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Jilib halkaas oo ay kooxda Al-Shabaab ku leeyihiin fariisinta ugu weyn ay ka soo abaabulaan weerarada iyo qaraxyada ay ka geystaan fariimaha hore ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab in badan waxay ku soo qaadi jireen Awdhiigle iyo Sabiib Caanoole balse Al-Shabaab inta mar ay weerarka ku soo qaadeen Sabiib Caanoole iyo Awdhiigle uma aysan suurto gelin in ay la wareegaan iyagoo marka hore hadafkoodu uu ahaa weerarkoodana uu ujeedkoodu ahaa in kooxda ay la wareegaan Awdhiigle iyo Sabiib Caanoole balse ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin iyaga u foojigan ama ka foojigan dhagarta ay maleegayaan kooxda Al-Shabaab ayaa dagaal culus oo jilbaha u aasteen kala hortagay. fadlan hadaa intaad nala soo gaartay aad iyo aad mahadsan tahay waxaan ka codsanahay haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka like share gareeg
qaybta hoose commentiga aragtida nagula wadaag sida uu aragtid dagaalka ka dhanka ay kooxda al-shabaab lagu jiro ee guud ahaan Soomaaliya ka socdo iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu ku sugay farmaha hore dagaalka isagoo tuuto wata taasoo dhiirigelin u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in askari Soomaaliyeed furinta uu ku hoydo madaxweynaha qaranka waxay sharaf iyo dhiirigelin iyo mudnaan ay u tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa dadka deegaanka ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqatay inaad subscribe dhahdid channelka siina share gareys like na saartid lana wadaagtid saaxiibadaada wixii aragtidaada commentiga nagula wadaagtid aad iyo aad u mahadsan tahay